kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillahi raxmaani raxiim. galab wanaagsan daawadayaal. maanta waa maalin Jimcaha, bisha Maarsan ay tahay 1 waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan caawa oo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamuud Xasan. wararkii oo kooban: gargaarka guryeynta, codsiga gargaarka musiibada, guryo cusub iyo weliba aqoonsiga soo galootiga dadka Afrikaanka ah. waxaan qodobadii oo kooban haatana waa kun iyagoo faahfaahsan. gargaarka guryeynta, gudoomiye Janet Mills ayaa waxay weydiisatay sharci dejiyayaashu in ay ansixiyaan $10 milyan oo lagu maalgelinayo oo maalgelin dheeraad oo loogu talagalay barnaamijka guryeynta. gudoomiye Mills waxa ay soo jeedisay in lagu kharash gareeyo $10 milyan si loogu bixiyo deymo aan dulsaar lahayn oo la cafin karo, kuwaas oo iyagana lagu horumarin doono dhismaha guryo la awoodi karo ama danyarta loogu talagalay. gudoomiyuhu iyadu sidoo kale waxay codsanaysaa $16 milyan oo lagu maalgelinayo guryaha hoylaawayaasha iyo guryaha dhaxanta laga dugsado iyo weliba guryaha ku-meel gaarka ah ee gobolka oo dhan gaarsiisan. xisbiga jamhuuriga ahi arrintaa way kasoo horjeedsadeen iyagoo oo ku sheegay in lacag aad fara badan lagu bixinayo dadka soo galootiga ah, taasina ay faa'iido u tahay dadka iyagu markaa magangeliya doonka. xildhibaanada ayaa iyagu hadda waxa ay bilaabayaan dib u eegista codsiga miisaaniyadda kabka ah ee gudoomiyuhu ay soo jeedisay. codsiga gargaarka musiibada, gudoomiyaha gobolka Mills ayaa waxay ka codsatay madaxweyne Joe Biden inuu ku dhawaaqo jiritaanka musiibo weyn si uu u caawiyo 8 degme ee Maine ee xeebaha ku yaala oo iyagu markaas si ay uga soo kabtaan 2 duufaan oo waaweyn oo ku dhacay bishii Janaayo aan soo dhaafnay. haddaba warqad ay u dirtay madaxweynaha ayaa gudoomiye Mills waxay ku sheegtay in khasaaraha soo gaadhay kaabayaasha bulshada sida wadooyinka, buundooyinka iyo weliba dhismayaasha ay keeneen 2 duufaan ay ku kacayso in ka badan $70 milyan. haddaba ku dhawaaqista musiibada ee madaxweynuhu waxay dadka deegaanka ka barakacay u soo celin kartaa lacagihii kaga baxay hoyga, gargaarka iyo gargaarka kiro iyo weliba baahiyo kale oo iyaguna daran. gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxay soo jeedisay sharci keligii taagan oo aan idhaahdee loogu isticmaalayo $50 milyan oo ah lacagta gobolka u taalla si loogu caawiyo bulshada ay musiibada duufaanku ku dhacday si uga soo kabsan lahaayeen iyo weliba ka hortagga isbeddelka cimilada. guryo cusub, magaalada koonfurta Maine ku taalla ee Kittery ayaa iyadu waxay ogolaatay qorshe lagu burburinayo xarun ganacsi oo ay dukaamo ku yaaleen si looga sameeyo hotel, makhaayad iyo weliba guryo jidka ku yaala Route 1 la yidhaahdo. qorshahaasi haddaba waxa uu ku baaqayaa in 107 guri oo cusub laga dhiso meesha uu ku yaala ganacsigaasi oo ay ku jiraan 11 guri oo loogu talagalay dadka danyarta ah. haddaba guddiga qorsheynta ee magaalada ayaa iyagu waxay ansixiyeen mashruuca dabayaaqadii toddobaadkii hore. mashruucani waxaa loo dhisi doonaa 3 weji oo lagu bilaabayo hoteelka sida uu sheegayo qandaraaslaha oo ah shirkad guryaha dhista oo laga leeyahay gobolka New Hampshire. haddaba guryaha waxaa la dhisi doonaa iyaguna la gelayo wejiga 2 ee mashruucan. saraakiisha magaalada ayaa iyagu waxa ay sheegayaan in aaggu u baahan yahay guryo badan, gaar ahaana shaqaalaha ka shaqeeya goobta u dhow ee maraakiibta badda lagu sameeyo ee Portsmouth iyo weliba dukaamada tafaariiqleyda ee deegaankaas ku yaala. aqoonsiga soo galootiga Afrikaanka ah, qaar ka mid ah soo galootiga Afrikaanka ee Maine ayaa iyagu ku tilmaamay la qabsashada haybsiga jinsiyadeed ee Maraykanku inay noqon karto mid adag, maadaama ay iyagu la kulmaan baa la yidhi kala haybsi jinsiyadeed oo ka duwan
ka duwanaan karaan idhaahdee kuwa dalkoodii horey uga jiri jiray. haddaba Fardows Xakimazana oo iyadu ku dhalatay Maraykanka una dhalatay waalidiin kasoo kala jeeda waddanka Congo iyo Burundi ayaa waxay sheegtay in dugsiga sare in badan oo ka mid ahi dad ardaydii ay isku fasalka ahaayeen ay ku jahawareereen haybteeda jinsiyadeed. waqti kadib Xakimzada waxay iyadu sheegtay inay baratay sidii loo dheelitiri lahaa dhaqamadeeda Maraykan iyo kan Afrikaanka iyo weliba isirkeeda iyo abtirsiinteeda oo ay u dabaaldegayso labada dhaqanba. daba si aad u akhrisato maqaalkan oo buuxa oo mawduucan ku saabsan waxaad ka daawataa oo luqadaada ku qoran mainpublic.org. waxaad nagala socoteen waa Main Public News Connect. intaas iyo sarag dambe waad mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Main Public News Connect waxaa suuro geliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Ku iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Main Public News Connect waxaa suuro geliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aad dhaqaale ahaan la tabaalaysan tahay COVID-19 daraaddii, sanduuqa mulkiilayaasha ee Maine waxay ku siin karaan kaalmada aad u baahan tahay. kaalmo ka timid dowladda federaalka ah oo bilaash ah oo lagu bixiyo kharash hore ama mid hadda ah. codso maanta oo badbaadi qoyskaaga iyo gurigaaga. waxa aad isbarbar dhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship. waxyaalo badan ayaa iska beddelaya Maine Care. ka warhay si aad caymis u hesho. iska sax ciwaanka iyo lambarkaaga adiga oo ka gelaya mainconnection.gov.